kusoo dhawaada saaxiibayaal channelka caalanka Soomaaliya oo aad mar waliba ugu barateen wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha qarsoon ee gudaha dalka. Warbixinada aan maanta idin waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay shirka Garowe ee lagu wada in maalinta berita uu ka furmo magaalada Garowe ee maamulka Puntland. Sidoo kale xog aan idin kaga hayno wada hadalkii ay xalay wada yeesheen madaxweyne Farmaajo, gudoomiye Mursal iyo wiliba gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xanshi. Sidoo kale waxaan warbixin idin kaga haynaa maxaad ku ogtahay heshiiska dhexmari al-shabaab iyo dawladda. xog ayaa iyaduna idin kaga haynaa. kusoo dhawaada warkii oo fidsan. saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Garowe caasimadda Puntland ay gaaraan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, halkaasi uu ka furmi doono shirweyne loogu hadlayo xaaladda Soomaaliya. madaxda Galmudug iyo Jubbaland ayaa la xaqiijiyay in ay maanta tagayaan magaalada Garowe, waxaana Garowe ka socota soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale haddii ay tagaan xubno ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama lagu casuumay. madaxweyne Siciid Dani ayaa shirkan ku casuumay madaxda dawladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle, Galmudug, Jubbaland iyo weliba Koonfur Galbeed. weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda dhexe ee Soomaaliya in ay ka qayb galayaan shirka beri ka furmaya magaalada Garowe. shirka beri ka furmaya magaalada Garowe ayaa ku soo aadaya xilli uu dib u dhacay shirkii golaha amniga qaranka ee Abriil ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa baaqday shirkii hore loogu balamay in uu ka dhaco Garowe bisha Maarso, kaasoo lagu dhawaaqay xilligii caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee Siciid Dani. waxaa kulan albaabada u xiran ku yeeshay hoyga madaxweyne Farmaajo, gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xanshi Cabdullaahi iyo weliba madaxweyne Farmaajo. kulanka ayaa looga arrinsanayay sidii loo meelmarin lahaa sharciga batroolka iyo kheyraadka, kaas oo lagaga doodi doono baarlamaanka. madaxweyne Farmaajo ayaa ku cadaadinaya labada gudoomiye in ay ansixiyaan sharcigan ayaa ka mid ah ballanqaadyo uu madaxweyne Farmaajo u sameeyay ra'iisul wasaare Kheyre si uu istiqaalada u keeno iskuna casilo. waxaa huwaal ah in dad badani ay yareysanayaan ujeedka guracan ee loo dardargelinaya ansixinta sharcigan oo 2 isbuuc ka hor ay magaalada Djibouti wax uga bedeleen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa xildhibaanada taga Djibouti bixiyay qarashkooda dawladda Norway. waxaa caado ah in dawlad xumi aysan mar waliba dhammaan raadadka xun ee ay ka tagto markii ay dhacday ee talada laga wareejiyo. dawladda madaxweyne Farmaajo waa la mid, waayo waxay dawladaha fashilka ah dalalkooda geliyaan xaalado adag sida sharciyo ay gacanta ku rimiyaan oo hadhow keeni karta in si dhib badan lagu xaliyo. tusaale waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo maalmahan la hadalhayay oo u muuqda mid lala degdegayo isla markaana loogu danaynayo dad gaar ah sida ra'iisul wasaare Kheyre, si kasta u maroojinaya gacmaha sharci dejiyaasha ay heybta iyo saaxiibada wadaagaan si sharcigu uu ugu adeego Soma Oil and Gas. maxaad ka ogtahay heshiiska dhexmari shabaab iyo dawladda? wada hadallo maalmihii ugu dambeeyay u socday dawladda federaalka iyo al-shabaab ayaa waxaa dhanka dawladda u matalayay Fahad Yaasiin, dhinaca shabaabkana waxaa matalayay Macalin Xaashi iyo Aadan Goobe. sida aan xogta ku helayno waxaa lagu heshiiyey in shabaabka ay si ku meel gaar ah u joojiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho bisha Ramadaan. waxaase heshiiska ku jira in la qarxin karo lana weerari karo ciidamada shisheeyaha ah sida AMISOM. waxaa kale oo lagu heshiiyey in shabaab loo fududeeyo cashuurta ay dabaan ku soo rogeen ganacsatada wax ka soo dejisa furdada ama dekedda Xamar ee ah halkii tan in ay ka qaataan 12.7 oo doolarka Mareykanka. waxaa jira dadaal gaar ah oo ay wadeen dawladda Eritrea lana doonayay in shabaabka iyo dawladda la wada hadashiyo si aan toos ahayn oo Eritrea u kala dab qaado ilaa iyo inta isfahan buuxa laga helayo. waxaa iyadana socday dadaal kale oo ay wadi dawladda Qatar oo la doonayay in heshiis buuxa la dhex dhigo dawladda iyo shabaab si la isugu geeyo magaalada Dooxa caasimadda Qatar. balse sida aan xogta ku helnay dawladda Qatar ayaa ka gaabsatay kadib markii ay ka war heleen wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka. Fahad Yaasiin ayaa shalay gelinkii dambe ka degay magaalada Nairobi, waxaana halkaa ugu yeeray sirdoonka dalka Kenya si uu kaalin uga geysto sidii shabaab ay u soo celin lahaayeen dad badan oo ay ku afduubatay gudaha dalka Kenya. dawladda Kenya ayaa ka warhaysa xiriirka u dhexeeya Fahad Yaasiin iyo shabaab, balse waxa ay danaynaysaa sidii loogu soo furi lahaa dadka ay ka haystaan. Fahad ayaa isagana danaynaya in dawladda Kenya ay ka joojiso dacwadda ka dhanka ah kadib markii uu ka been sheegay qaadashada dhalashada dalka Kenya. sida ay xogta sheegayso Fahad Yaasiin ayaa ballan qaaday in uu lacag dhan $2 milyan oo dollar ah xurmad iyo xaq dhowr shabaab la siin doono
inta aanay dhammaan bishii Ramadaan waxaana ugu muhiimsan ee lagu heshiiyey waxa ay ahayd in dowladda iyo shabaabka ku wada shaqayn dhow yeeshaan. Waxaa kaloo lagu heshiiyey qaabka doorashooyinka madaxtinimo ee 2021 oo ay golaha baarlamaanka u codeyn doonaan. wixii warar ay soo kordhay waxaa si toos ah ugala socon doontaa channelka Caalamka Soomaaliya. Ha ilaawin subscribe haddaad muuqaal ka heshay like. haddii aad fikir qabtana qaybta hoose inoogu reeb ee commentiga lana wadaag asxaabtaada. waadna mahadsantahay.